السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ورسن شيخ محمد جنال كداوان سانا وسيروق شيخ جنال وايد السلام يا صحابتي إذا قروح بدن يا شرفت بدن هذه إلهي وحين نوجر جينا بإذن الله الرحمن عافي عافيمات إلهي الرحمن دمانتنا وذسيو شارك يلاقي كومنتي وحقنا إن شاء الله بإذن الله الرحمن أنا مركا وحي إلى جدبون أن إسلاي هاي كهذا إن كهالله ayaan rajaynayaa biidnillah. waxaa runtii waayadan dambe ku soo batay social media ishaysi badan, isu habarwacasho badan, qayli badan iyo dhawaaq badan, meel walba inooga imaataba social media waxa loogu wada jiro waxay tahay inuu nin walba fikirkiisa iyo afkaarta uu xambaarsan yahay uu ku gudbisto uu gudbiyo meeshay u gaartaba. runtii waxaa la yaab leh waayadan dambe raggi Soomaaliyeed inay caadaystaan inay dumarka ceebahooda banaanka soo dhigaan. inta social media la arkay waa balaayo la arag, balaayo loo baahan yahay, balaayo loo baahan yahay. waa ta social media maanta dadka wada keentay, waa tan nin walba uu ku faanayo gabar qaawan baan hayaa, maxaan ku radaa gabar cararaysaan hayaa, gabar silicsan baan hayaa, gabar dhimatay baan hayaa, gabar la kufsaday baan hayaa. marka kuma aysan xisaabtamin dumarkani inay yihiin beertay iyagu ka imaadeen, tay iyagu u baahnaayeen, tay iyagu dhaleen. inta garanaysa waa in yar oo la og yahay. waxaan leeyahay on la yaaboon aad ula yaabay oo aan ka daawaday ilaahay khayr ha siiyo janalka maxamed buskud aan ka daawaday isaga oo soo dhigay cabdidhaanto oo dhahayo waxaan soo qaadanayaa, muxuu soo qaatay naaqaawan oo maxaan ku idhahdaa inta kurkan uu soo saaray Nicimo Jookar. warin kaare la kurito ta tinta dabatay adigu laftinkaado nala mid u nahayd goorma naga dhax baxday sawtay tinta ku dabnayd, sawta tinta laba galaan ka dhigatay si dumarkii sawta soo tidcatay, sawta daawada iyo kareemyada iyo adduunyada annagu amarsanna aad nala marsatay. war miyuu gabar caayaysa maxay tahay? gabar caayayso maxaa kaa qaldan? haddaad nin raga tahay adoo nin raga u hiilinaayo oo nin raga garab siinaayo oo gabar caydeeda garab ku siinayo inaad soo qaadato naag qaawan, bilow walaashaan noqotay naagta qaawan oo kurka nimco saartay. ma adduunyo ka weyn baa jirtaa? ma falxumo ka weyn baa jirtaa? tan kale waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed markay dhibaato ku dhacdo social media wuu wada istaagi jiray, waa la wada qaylin jiray, waa la wada dhawaaqi jiray. maanta inta hadasho way yar tahay runtii. waxaan islahaa inta ay in ka badan baa hadli doonto. wax aada idiima yeelay dadka social media ku jira, laakiin waxaan leeyahay nin walba danbu u aamusay, dantu u aamusay anuu garan maayo, Allah raxmaanka garanayo, waxba anuu ka garan maayo. social media qabiilka waa la keenay, qarankana waa la keenay. maskaxdaada yarta ah haddii aad isdhahdo ku difaac qabiilkaaga, aqoonsi buu ku yahay qabiilkaaga. qarankaaga ku difaaca haddii aad isleedahayna waxaad tahay qof waddankiisii weli jacayl u qabo kuna jiro. laakiin waxaad arkaysaa baraha bulshada dad badan oo ku jiro dad waaweyna runtii oo dhahayo annagu haddaan reer hebel nahay reer hebel baan taageeraynaa, reer hebel baan taageeraynaa annagoo reer hebel, ama wiilkaasaan taageeraynaa annagoo reer hebela. adiga oo markaa u muujinaya nacayb aad qabiiladan kale u qabtid. qabiiladan kale sheekh iyo shariif baa ku jira, shaqsi baa xun. maalinta horena klibkayga waan oga hadlay qabiil uu ka soo jeedo wiilka falkaa sameeyey ama dembigaa sameeyey qabiilkiisa inaan u caayo ama qabiilkiisa aan soo qaato ha iga sugin. laakiin asaga qaasatan wax waan ka sheegi karaa. laakiin qabiil dhan oo sheekh leh oo shariif leh oo culumo leh oo caamo leh
oo aqoonyahan leh oo waxgarad leh oo garaad leh oo suldaan leh oo salaadiin buuxda leh inaan wax ka sheeg ha iga sugin laakiin qofka shaqsiga isaga waxaan sameeyo dhibkan sameeyey in wax laga sheego weeye asagaan ku filannahay inaan wax ka sheegno qabiilkiisa anagu aadi mayno kolley anigu shaqsi baan ahay warsan ahaantaydu qabiilkiisu inaan aado ama wax aan ka sheego aad baan uga gaabsanaya intaan ka gaabsan karo laakiin kan anigu ka soo jeeda haddaan soo qaato qabyaaladiga ma aha laakiin waxay iga tahay iyagu laftinkooda inaan wax u sheego keliya qabyaaladuna dadku waxay u yaqaanaan qabiilba haddii afkaaga laga maqlo inaad qabyaaladaysto tahay qabiilkan hadduu xun yahay oo xaaraam yahay qur'aanka laguma soo dari lahayna waa laga saari lahaa waa laga saari lahaa laguma soo dari lahayn way loogu soo daray in aan isku aqoonsano nin walba meeshuu ka soo jeediyo wuxuu yahay uu ogaado muhiimku waa intaa tan kale waxaan leeyahay oo inta badan aan runtii aan sheegayaa oo aan ka hadlayaa ragga gabdhaha caayayo ninka gabdhaha caayaya u soo fariisanayo ee dhahayo fiidiyoyo badan baan ka hayaa weliba waan soo dhigayaa ee uu sheegay maxamed buskud inuu baloog saaray markaan la hadlaan ku yidhi waryaahay gabadha sida ka daa ha soo saarine buu intuu qaaday balooga gudhajuu yidhi haddaan video meel kasta dhigayaa war yaad u hiilinaysaa yaada ka hiilinaysaa yaad u hiilinaysaa yaasa ka hiilinaysaa adigii baaba dumarkii ku dhex jira laftinkaagoo dhinacnaba oga baxsanayne sawkaytinta gadaal kuugu xirray intaad soo galaamatood soo tidcatayoo intan hore si cajiiba oo berigii hore de gabdhaha yarare fuudlayda la ahaa sida loo galaaman jiray tinta intaa usoo galaamatay soo daytay soo adigu ma ahayn maxaan kugu tilmaanaa marka ma rag baan kugu tilmaanaa mise dumar baan kugu tilmaanaa maxaase ku raadsanaysa oo sharaf oo kaga raadsanaysa markaa niciimana caysid wiilkaa holan deganna aad dhabar ka saaratay maxaa ku raadinaysa ma qabyaalad baa ku wade ma lacagu ku siiyaa muxuu kuu sameeyaa bal wuxuu kuu sameeya noo sheeg annagaa kuu samaynayno dumare annagaad nala dhalatay si aad oga harta ninkaas iyo wareerkiisii bal gabdhaha ku soo dhexlaabo waa la yaab intiisa leeg waxaase kaloo inta badan baraha bulshada ku arkaa gabar aad u cayso beelaha aad u cayso gabadhaas qabiilkeeda yaan loo qabanin yaanan loo caayinin loo aflagaadaynin inagama mudno inaan dad cayno qabiil sharaf lahay ka dhalatay ayadaa nijaaso ah ayadu waxay doonto ku sheega laakiin qabiilkeeda ha u soo qaadanino waddo ha u marino ha caayina gabdho badanoo waxaa ku jira runtii baraha bulshada dhahaya naa joog naa aamu naa ha hadlin naa ha yeelin naa ha dhihin yaa qof walba intay soo qabsatay waxay dhihi brofilkaagan kaa daba keeni bal anigu kayga iga daba keen aniga kayga iga daba keeni warsan sheekh maxamede sababtay tahay qofku taqaanana ma ihi qofaa taqaanana ma ihi isku meelna kuma noolin hadday cayayaan kuugu jiraan baraha bulshadu dadku kuugu soo ururiyaan intaad kurkayga qaadata meela doonta geeyo naagta doonta saar adaa akhtiyaar iskale laakiin anu ajir adiga intaan aan ku siiyo oo qabiilkaaga aan caayo oo qabiilkaaga aan wax ka sheego ha iga sugin inaan qabiilkaaga wax ka sheego oon ku caayo waa beel Soomaaliyeed waa beel sharaf leh waa beel culumo ah waa beel caaqiliin leh waa beel waxgarada ha isku dhajinin marka ha isku dhajin dadaan waxba kaa gelin dhalashadaada ha dhaafin ninna dhalashadiisa ma dhaafaa la yidhi dhulna meeshiisa kama durko nin dhalashadiisa dhaafaya ma laha dhulkana meeshiisa sidiisaba kama durko dhul sikanayo miyaa la arkay weli may
nin dhalashadiisa dhaafa miyaa la arkay weli wax qof oo dhalashadiisa ka tegi ma la arkay dhalashadaada ha ka tegin beeshaada ku faano madaxa ha ku saarnaato meeshaad ka soo jeeda asalkaaga ha aadin waxaan adigu ahayn ha aadin wax lagugu caayayo berri hadalkaaga imaanayana ha ku daalin baraha bulshada waxa ka socda waanu aragnaaye gabadhaana intaasaan leeyahay dadka xumaantooda aad faafinaysidna saw lagama yaabo shaydaan intuu hoostaada ka dhasho inuu berri xumaantaada intuu soo qaado baraha bulshada keeno saw lagama yaabo digtoona walba qab fiidhoona walba qab is ilaali maxaan ku rahdaa dhan walba waxaad iska ilaalisaa waxayna ka dhacdhacaan iska ilaali wax walba garbasaartaada xitaa inay dhinac ka dhacdo iska ilaali isgeeji laakiin ogow ilaahaygii raxmaan ahaa ee 9 jeer ceebtaada astore maalinta tobnaad kuugu dari maayo maalinta tobnaad ee bannaanka lagu soo dhigi beelahan aad caayaysidna daayo aflagaadada jooji gabar aflagaadada jooji dad baa iska kaadhahayo haddaa gabadhaa la hadashid waa lagu soo qabsani anagu magacaaga ma sheegayno magacaagu ma rabno magacaaguna uma baahnin laakiin adigoo soo gelin YouTube bad Facebook live u soo galaysa dadka od caynaysa oo intaa caytamaysa saana waxaan ku arkayaa 12 sano inaad waa waray ku jirtid ilaa inta meel lagu fariisiyay gambar lagu fariisiyay caana booro lagu soo qasay lagu dul shubay lagu yiri boqorad baa tahay ugaasad baa tahay caanahaas qaado caanihii ma ku dhaqi waayeen oo ma ku mayri waayeen oo ma ku hagaajin waayeen oo ma ku naaxin waayeen oo ma ku dajin waayeen waa adigii ka soo dulbaxay gabdho badan oo waxaa jira kugula jira social media oo intaa kale naajoog na dadka ha caayin na dadka ha aflagaadeen na labadan reer ayaga is haysta iskaga dhaxbax adigu maxaa ka galay waxaan arkay kelmad inta badan aan ku arko TikTok oo nin uu isticmaalo ya reer qaxaaye reer yeelaaye reer xabaalo qode reer waxaasaya reer kane reerkaagu cayimayna laakiin haddii la qaxay waa la soo wada qaxay xageed joogtaa adigood ku nagaatay ma reerkaagii baad kula meel la joogtaa xageed ku nagaatay xageed tagtay xageed harsatay xagee hooy ku ah xageed degan tahay xageed ku ganacsanaysaa ma gurigaagiba ma beertaadiba ma geedkaaga hoostiisiba waa xagee ilaahay baan kugu dhari waa xagee meesha joogtid saw un meel inta ka fogun maaha saw un meesha dhulkaadiba aan ahayn maaha meeshaad joogtid ood ku nagaatay maxaad marka ka rabtaa dadka magacyadaha qaabka daran edabta daran daaqadan waxaan u fadhiyaa qabiilkaaga meel uu ku geynaya ma laha wallaahi waxaa laga yaabaa inaad ku dhimatid meel uusan qabiilkaaga joogin ood qabiilada aad necab tahay ay joogaan aad berri oga baahatid inay xabaasha ku dhigaan ay ku qaadaan oy janaaso kugu tukadaan intaasaa laga yaabaa marka intaa kaa ku dayatid dadkan aad soo qaadanaysidood reer qaxaayada aad ku haysid gabar yahay iska jooji cagaha dhulka dhigo wallaahi dadkaas qajaansan baa la helayaa dadkaa cay badan baa la helayaa dadkaa xun baa la helayaa dadkaa wax badan baa la helayaa laakiin in la xishoodaa muhiimka u yahay waa la xishoonayaa waa la baqayaa waa la iscelinayaa cabsi aan adigu kaa cabsanaynana maba ahaba sideeda bannaanba laakiin xishoodka cabsiday ku jirtaa inuu qofka xishoodo cabsiday ku jirtaa marka xisho cabsidaadu ha noqoto inaad xishootid marka ugu horreysa ilaahay ka xisho marka xigtana ummaddiisa ka xisho marka kalena hawadan iyo neeftan fireeshka ilaahay ku siiye ka xisho subaxii cay ha la soo kicin cambaar ha la soo kicin yaan ku dhagaa ha la soo kicin yaan ku qayliyaana ha la soo kicin muna muhiim baad haysatay waxaad ku haysataa anuu garan maayo waxaad ku caayaysaa anuu garan maayo naag iyo nin isqa waxa ku dhex geliya anuu garan maayo gabadhan ay far dheeraataad noqotaye dadka meel ka fariiso fidmo yahay urursan foolxumo yahay soo taagan warya ilaahay yaqaano annagu bal brofeeladeena soo baaro baa gorokan ha lagu keeno oo aayaha aan leenahay ha lagu keeno oo waaniga warsan sheekh maxamed
dalka kanadana ku noolahay soo raadi waxaan ahay kuwa badan oo cadowgayga oo ku dhihi doono saasay tahay iyo kanay tahay iyo kuusay tahayna waa helaysaa intaasna waa sir eedaday milyan aan ka barta waa sir la isuma sheego ya soo baar dalka kanadan jooga cadow waa badan yahay waa hele kuwa aniga yaqaano xumaanteydana ku gudbiyo kuna siiyo laakiin magacaygu waa warsan sheekh maxamed inshaar dalka kanadan ku noolahay gaar ahaan gobolka Ontario magaalada Toronto عزي يا شرف يا كرامة وحن هاي أمة الصوماليات يا إسلام كأنت بكم دحله نفط إذا كاتك هاي جورجي إذا كاتك هاي رير كي إذا كاتك هاي من جعلي قرد الرضا أدبنا جاب صدا قفك يقول قرد الرضا حتى مركان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.